waxaan aad ula tacajabay isbedelka sanadkan iyo sanadkii hore imtixaanaadku markay soo dhadhow yihiin masaajidadu halkaas ay istaagi jireen dhalinyaro ama ayd ha noqdaan ama fanfooro laakiin aad bay u yaraayeen sanadka inay la daranteen kala mooy kulliba ardaydu inaanay waxba akhrisanayn iyo inay meelo kale ku akhrisanayeen waxyaalaha cajiibka ku hayn waxa ka mid ah halkan intay wada dhigtaan ayay ku akhriyi jireen ardaygu uu cibaadaysanaya barakadii masaajidku helaya khalwu helaya cidaan daqaabi mayso macnuhu waxa weeye masaajidku shaqadu inoo haya cibaado un maaha gaala iyo gaala raac waxay doonayaan inta la furo la adimo la tukado deeta laga baxo laakiin waa in mustawihiisii lagu soo celiyaa oo shaqooyinku qaban jiray oo dhan lagu qabtaa markaas ummaddu uma noqonaysaa shaqadii koobaad ee nebigu qabtaa waxay ahayd binaa'u lmasjid qodobka labaadna waa walaalaynta saxaabada qodobka saddexaadna waa mucaahadadii yuhuuddii meesha deganayd uu la galay marka masjidku waa santarkii muslimiinta waa halkay ku shirayaan waa halkay isku xaal ogaanayaan waa halkay alle ku caabudayaan waa halka ay maxaa la yidhahdaa aqoonta cilmiga ku baranayaan waa halka la isku wacdiyayo masjidku wuxuu u yahay wax la yaab luu yahay maantana calmaaniyaddu waxay isku dayeysaa maalinba inay ka dhinto mustawihii masaajidka iyo meeqaamkiisa waxaan aad ula tacajabay isbedelka sanadkan iyo sanadkii hore anigu masaajidada intan aan ka gaadhay imtixaanaadku markay soo dhadhow yihiin masaajidadu halkaas ay istaagi jireen dhalinyaro ama ayd ha noqdaan ama fanfooro laakiin aad bay u yaraayeen sanadka inay la daranteen kala mooy kulliba ardaydu inaanay waxba akhrisanayn iyo inay meelo kale ku akhrisanayeen waxyaalaha cajiibka ku hayn waxa ka mid ah halkan intay wada dhigtaan ayay ku akhriyi jireen ardaygu uu cibaadaysanaya barakadii masaajidku helaya khalwu helaya cidaan daqaabi mayso macnuhu waxa weeye masaajidku shaqadu inoo haya cibaado un maaha gaala iyo gaala raac waxay doonayaan inta la furo la adimo la tukado deeta laga baxo laakiin waa in mustawihiisii lagu soo celiyaa oo shaqooyinku qaban jiray oo dhan lagu qabtaa markaas ummaddu uma noqonaysaa